waalidkayga wixii dhibaayo haddaan ka digtooni yeesho ma dembi jecel baan galay. samsam oo ah gabadhay ku dhacda qisadan ayaa waxa ay leedahay anigu waxaan ku noolaan jiray magaalada Muqdisho waxaan ka mid ahaa dhalinyarada degmada Hodan ku dhaqan waxaa lahaan jiray jacayl kaasoo bilowgiisii ku bilowday farxad iyo nolol wanaagsan. Axmed isna waxa uu ahaa wiil aan aad u jeclaa isna sida oo kale waa uu i jeclaa. xiriirka inaga dhaxeeyo aniga iyo Axmed waxa uu socday muddo 3 sano ah balse ani waxa ii soo baxay bixitaan waxaana ii soo dacwootay hooyadeyda oo dalka dibadiisa ku sugneed. hooyo ma aysan ka warheynin in aan xiriir jecel aan la wadaago Axmed. habeenada ka mid ah ayaa waxa jecelkayga Axmed aan ku ballamiyay gurigeyga si aan ula wadaago arrimaha igu soo kordhay. markii uu ii imaaday ayaa waxaan isdhaafsanay kafsan iyo sheeko dheer kadibna waxaan u sheegay in ay hooyo ii soo dacwootay oo aan dhawaan bixi doono. gabadhu ayaa waxa ay tiri jaceylkayga Axmed markii aan arintaas u sheegay aad ayuu uga xumaaday waa uu ka naxay marna waa uu ku farxay balse anigu waxaan ku dajiyay oo aan u sheegay in aan hilmaami doonin oo xiriirkeena sii socon doono. maalmo kadib ani waan ka tagay dalka waxaan aaday dalka Finland oo ay hooyo ku nooleed. markii aan tagay halkii aan u socday ayaa durbaba waxaan soo xiriiriyay macaankayga kadibna halkaasi ayaan ka siyaan baqaanay xiriirkii jacayl ee inaga dhaxeeyay halkaasna waxaa ku sii saa'iday jacaylkeeni. sidii uu u socday xiriirkeeni jacayl marba marka ka dambayso oo uu u sii saa'iday ayaa waxaan dhowr jeer aan isku dayay in aan Axmed wado oo aan geeyo dalka Finland oo aan anigu ku noolaa balse taasi waa ii suurtagali weysay. iyadoo taasi ay jirto ayaa waxa aan qarinayay in uu xiriir jacayl naga dhaxeeyo Axmed. hooyana ma aysan igu ogeyn. sidii aan u qarinayay jaceylka ayaa waxaan go'aansaday in aan hooyo u bandhigo arinta oo aan daaha ka qaado. markii aan u sheegay hooyo way igu gacan seertay waxayna i tiri ma nin Afrika jooga ayaad rabtaa inaad guursato taasi ma ahan mid suurtagelayso. waxayna raacisay go'aanka aniga ayaa iska leh laba wado ayaana kuu bannaan waalidkaaga ama ninkaasi ayaad raacaysaa. markii aan maqlay hadalkaasi aad ayaan u naxay waxaan garan waayay xaalku siduu uu yahay iyo weliba sidaan ugu jawaabi lahaa hooyo. aamusnaan badan kadib waxaan hooyo ku iri hooyo jaceylkan Axmed u qabo waan ka samri karaa laakiin hooyo adigu kaama maarmo oo waalidkayga ayaa tahay
anigoo og in aan Axmed ka maarmin ayaa haddana waxaan hadalkaasi ku qancinayay hooyo waxa aan wacay macaankeyga waxaan u sheegay dhibaatooyinka ila soo gudboonaaday ee dhanka hooyo ka yimid abaayo runtii hooyo warkeeda lama diidi karo laakiin jaceylkeena waa baabi'in karnaa waayo jaceylku waa wax ma la heli karo laakiin waalid ma aha wax la heli karo Axmed horta caaw ma caafimaad qabtaa maxay tahay sida uu dhaqmayso waad ogtahay in aan aniga adiga kala maarmin oo aan aad isku jecelnahay abaayo waan ogahay in aan adiga ka maarmin laakiinse adiga ilama joogtid waalidka ayaa la joogtaa hooyadana warkeeda ma diidi kartid waayo waxay u qaadanaysaa inaad caasi waalidii tahay abow sidaas ay tahay haddana waxaan suubin karaa in aan mar kale kuu dacwoodo oo aan Yurub ku geeyo hadday ii suurtagelayso halkaasna isku guursano waan ogtahay qurbaha in aysan ka shaqaynin hadal waalid oo wiilka ama gabadha go'aankeeda la qaadanayo abaa mid ayaan ku weydiinayaa haddii aan asla baxsano ama Yurub ay wadid ama Soomaaliya asla imaano ma ogtahay carruurteeda doonayso in dhibaato ayado ishwaalid ku jirto ay u imaanayso waxaa roon inaan iska diidno oo aan iska sabarno waayo jacayl waa la heli karaa haddii aan calaf isku leenahayna waa laga yaabaa inaan isguursano maya aniga ma samri karo gabadhu ayaa waxay leedahay markii uu telefoonka igu damiyay aad ayaan ugu xumaaday marna waan ka naxay marna waxaan is iri Axmed go'aankiisa ama qaadataa haddana waa ila fiicnaan weysay oo jaceylkayga kama maarmo aad ayaan u jeclahay sakin waliba ama daqiiqad waliba in aan jaceylkayga kor u qaadayaan jeclahay sidaasi ayadoo ah haddana hooyo hadalkeeda ma diidi karo oo meesha ayuu yaalaa samsam waxay leedahay maxaa go'aan ah oo aan qaataa maadaama hooyo iyo jaceylkayga Axmed ay isku go'aan yihiin ma waxaan raacaa go'aankooda mise waxaan raacaa jaceylkayga iyo waliba qalbigayga waxyaabaha uu i farayo